24 saac ayay ku noqotay dheeman dunidu wada raadinayso maanta ayay dhadhabinaysaa dheefta iyo dhaxalka heesaan dhagaha Soomaalida ku cusbayn caanimo soo daahday ahaa kuwa yiri samraa sadkii hela iyadoo Soomaalida abaal uga hayn ma ogtahay in gabar Hargeysa laga soo tarxiiray dawladaha Mareykanka iyo Ingiriisku ay ku tartamayaan mid walba sidii ay show ugu qaban lahayd dalkooda Hargeysa calfan weyday nafa get back anigaba laga yaabo inay ii qaraxdee saaxiibayaal ii sheer gareeya 4 sano kadib dadka qaar inay caan noqdaan ayay dib u maraan laakiin nibca habbi iyadoo joogta gurigeeda oo ku yaala magaalada Cabudwaaq ayay caannimadu soo raadsatay dad baaba u sheegay in dunidu raadinayso waaba tan iyadoo ajnabi taageerayaasheeda u mahad celinayso leef ay soo gashay. Hello, hi, I am Nimca Happy. Thank you for the support. My song, I love you more than my life. Thank you so much. waa tuma gabadha masraxyada caalamka ruuxday magaceeda oo saddexan waa Nibco Bir Lixle Cali Kulan waxay sagaashameeyadii ku dhalatay magaalada Cabudwaaq waa hooyo haysata 2 caruura aabaheed waxa uu dhalay iyada oo kaliya waxaana eedda laxmi ah u ah abwaanad lagu magacaabo Xalwa Axmed Bulxan 24 saac gudahood ayay ku heshay calaamadda TikTok waxaana la soo xiriiray shirkadaha TikTok iyo Instagram waana shakhsigii ugu horeeyay oo Soomaali ah oo xiriir toos ah ay la soo sameeyaan iyagoo si gaar ah ugu hambaliyay una aqoonsaday inay tahay fanaanad caan baxday waxay casuumaad degdeg ah ka heshay dalka Ingiriiska waxaana loo sheegay inay si degdeg ah Soomaaliya uga soo baxdo heesteeda ogsoonow inaan ku jecelahay waxa la geliyay suuqyada heesaha caalamka lagu iibiyo 4 sano kadib wargeysyada dunidu waxay falanqeynayaan heesta ogsoonow iyo Nimca Happy igeeya Nimca Happy igeeya Nimca Happy nagweyn Nimca Happy hali igeeyo I love you more than my life أنا أحبك يا حبيبي نقبل من ثانا وجدت العشق halka warbaahinta Soomaalidana ay tartan ugu jiraan sidii ay waraysi uga qaadi lahaayeen oo maxay markii hore uga qaadi waayeen Soomaalidu waxay dib uga baarayaan YouTube-ka heesteedii kaaga darane hadda waaba laga saaray YouTube-ka oo haddayba ku baraarugeen inay lacag ka sameeyaan oo markii hore maxay ugu xiran waayeen soo ma ogeyn in 5 sano kadib ay dunida gaarayso inta waa lugaynaysay kuwa soo qori doona heestii ay qaaday tanaa ugu nasiibka badnayd u sheega in heestu aysan nasiib lahayn ee gabadhu ay nasiib badan tahay Soomaalidu waa tii tahriibka jeclayde hadda kadib heesaha dhan waxa laga dhigi doonaa ana love you more than my life waaba tahriib dadban haddaad maqli jidhay alaab qaaliyowday waxaan ku hayaa qof qaaliyoobay kulankiisu uu adag yahay balse saacado iyo maalmo ka hor kulankiisu uu ahaa mid dadka la mid ah fadlan sii sheer garee si barnaamijkan meel fog uu gaaro ay dadku uga faa'iideystaan cadaan iyo madow Soomaali iyo Carab intuba